laakiin kelmadaan rabo inaan idhaahdo waxay tahay nolol iyo system iyo maamul iyo kala dambeyn iyo horumar intaba midna lama gaari karayo haddaan amni jirin. arrinta amniguna waxaad moodaa inay maalmahan aada u sii hallaabayso waddanka Soomaaliya, iyadoo ciidamo tiro badan ay joogaan, iyadoo laleeyahay waxaase amniga ku baxa, iyadoo kharash badan laga hadlayo, haddana waxaad moodaa maalin walba amnigu inuu sii gacanta ka sii baxayo, sii hallaabayo. dhibka waxaan isleeyahay inta badan Soomaalida la kule, sababtoo Soomaalidu inay weligeed sugto oo ay tiraahdo ciidamo shisheeyaan sugaynaa, inay wax noo qabtaan baan sugaynaa, inay meel la gaarsiiyaan baan sugaynaa, inay amniga naga sugaan baan sugaynaa, waa arrin iska adag weyn. inay iyadu xisaabtanto, isku tashato, isku xisaabtanto, ciidankooda la abaabulo, laga shaqaysiiyaa axsan. qolyaha internationalkuna waxaad moodaa in laba xaalo labadaba, kow inay ka gaabinayaan dhismihii ciidankii Soomaaliyeed, laba in ciidanka amisom ee jooga laftirkiisu dhaqaalaha uu baahnaa iyo tabashadooda iyada lafteeda aan la buuxinin, laguna dabagelin howlgalkoodii si u dhaqaaqi lahaayeen. sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa Soomaaliya mas-uuliyadda ugu horeysan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inay isku xisaabtamaan oo bal amniga dib la isu weydiiyo. shacabka Soomaaliyeedna maanta waxaad arkayseen shalay Baydhabo xasuuqii ka dhacay, dad ciyaaro fiirsanayay baa 26 dhimasho iyo intaas 60 dhaawac. maxay sameeyeen kubadda cag bay fiirsanayeen. waxay u baahan tahay nimankaani waa cadow in si toos ah cadownimo loola dagaalamo. dhibkana haysta waxa way qabyaaladii baa inta naga badatay, yaa maanta kii shabaab la soo qabta talaa ayaa reer hebel anaa la dijeedaa, reer hebel baa la wataa recommendation iyo waxaa loo raadinayaa in la sii daayo. markuu ku dilayo reer ma aha, arxan ma aha, waxba isuma dhaxaysaan. marka la qabtana waxay noqotay kaarka la isticmaalayo. taas waxaan odhan lahaa shacabkuna ha ka waantoomo iyo siyaasiyiinta. tala ahaanna waxaan kusoo jeedin lahaa ama dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqotee in kulligood laga qaado ciidamada amisom ee waardiyeynaya oo qolo walba iyadoo ay iswaardiyeyso, oo qolo walba bal horta ha la ogaado amnigu waxa uu yahay iyo say tahay. laga bilaabo fila Soomaaliya in laga qaado ciidamada amisom ee jooga oo la yidhaha ciidan Soomaaliyeed oo idin waardiyeeya dhisto, ciidan Soomaaliyeed uu waardiyaha la saaro. macnaha middaa ka iman kara waxa weeyaan horta in la ogaado amniga. laakiin hadday nin walba aan idhaahno intaasoo ciidana igu hareereysano intana ay waardiyeynaysa, dee amni aan u baahnahay ma jiro. in la wada dhadhamiyo aad bay u fiican tahay. waan u mahadcelinaya ciidamada amniga Jubbaland. waxaan iyagana rabay inaan u sheego inaan dardar gelino maalmahan la dagaalanka nimankaas manaxayaasha. cid kasta oo ka daba timaadana waxaan rabaa inaan u sheego in sharciga la waafajinayo. qof kasta oo qof shabaab oo lasoo qabtay ka ergeeya ka daba yimaado, waxaan doonaynaa inaan tallaabo sharciga ka qaado. waxaa weeyaan nin adiga ku dilaya, aabbahani tala isaga kuma laha. markaad berri usii dayso wuxuu ka odhanayaa kii murtadka ee aabbahay ahabaa soo daayay, ilaahay gacantiisa igu soo foki. markaa kolleyba haddaad murtad tahay adigana dilkaaga iyo kale ayna u kala duwanayn, sabab hadda loogu sii waxayo ma laha. marka waxay la tahay hawsha amnigu inay tahay hadda waxa u baahan in muhiimadda la saaro. Soomaaliduna waxay la quman inay oon soo jeedin lahaa inay tala midaan ka bedelan ay samayso. waan u mahadcelinayaa ciidamada amisom iyo beesha caalamka iyo cid kastoo naga caawisiyo, kuwaas raggoodii ku waayay dhiigooda noo horaya. laakiin waa weligood ma joogayaan, berri bay tegi karaan, beri dambey tegi karaan. inaan sidaa aan u fadhino maanuula dib usii noqonahay sax maaha. waxaa dhibka oo dhan noo haystana waxa way qabyaaladda iyo qabiilka iyo qurunka iyo waxaan iyaga nimankan ay markay annaga dan naga leeyihiin shabaabku ay nin walba waa reer hebel u isticmaalayaan iyo odaygaygi, markay waxa suuqayaan ayna reer hebel ayna yihiin. waan ka baraa qaadanay islaam baan nahay u leeyihiin. maxay galabsadeen carruurta ay kubadda fiirsanaysa la leynaya. marka waxay la tahay taana aan u diyaargarowno. aad baan idinku mahadcelinaya ciidamada amniga iyo mas-uuliyiinta. waad mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq.